dambaysa markii uu xiriirkooda ka soo wareegtay muddo hal bil oo kaliya ah waxay go'aansatay in ay ka tagto ninkeeda una tagto wiilkan ay isbarteen alaabaheeda ayay qaadatay iyadoon la ogin ayayna dhuumatay wayna iskaga tagtay ninkeeda iyo carruurteeda familkeeda ayay iskaga tagtay sabab la'aan ayayna carruurteeda ugu tagtay waxay u tagtay wiilkii ay isbarteen waxayna ku qancisay in ay weli guursanin oo ay single tahay. السلام عليكم أصحابتك حيران جنالكينا أشرف سي جي كسو دواذا مركلة إيه موخال عصوب هدي أدناقو عصوب تاي فضلا جنالك سبسكرايب غري موخالكنا لايك غري مهد سند دعدادان أنك هادلين وحي كدعدا دالك كونفورتا كوريا waxayna ku saabsan tahay gabar lagu magacaabo Kim waxay guursatay 1990kii waxayna ahayd gabar ku nooleed iyada iyo familkeeda farxad iyo degnaan waxayna u dhashay gabar iyo wiil ninkeeda markii ay muddo isqabeen ayaa gabadhan waxa ay ogaatay in uusan ninkan ahayn ninkii ay kuriyoon jirtay waa la yaab runtii sidee buu u egyahay ninka ay kuriyoon jirtay ma aqaan aniga runtii ugu dambeyn familkii sida fiican u noolaa oo farxadda ay ka muuqatay waxaa soo dhaxgalay muran iyo mashaakil weyn laakiin caadiyan lamaanaha wuu soo dhaxgali karaa mashaakil iyo muran waana wax iska caadi ah ayaan dhihi karnaa balse sanadka markuu ahaa 2003 mashaakilka familkan aad ayuu u sii weynaaday gabadhan waxa ay nafsadeeda u sheegtay inaysan gurigan ku joogin wax jacayl iyo qanacsanaan ah oo ay u joogto sida jaariyada oo kale oo ninkan iyo carruurtiisa ay u adeegto yacni inay tahay ruux shaqaalo oo kale ayay iska dhaadhicisay kadib waxay bilowday gabadhan in ay iska wareegto iyada oo samaysatay gabdho saaxiibo ah habeenkiina ay tagto night club-yada iyo meelaha baararka ah si ay ugu soo raaxaysato waa sida iyada ay u arkaysay in ay sidan raaxo tahay nolosheeda oo dhan ayay beddeshay sidaas ayay iska ahayd in badan laakiin habeen ayaa waxaa dhacday iyada oo kalaabka iska tagtay sida caadadayda ahayd ayaa waxay la kulantay wiil dhalinyaro ah oo asagana kalaabka joogay way sheekaysteen iyaga oo lambarada kala qortay wayna kala tageen iyaga oo iska caadi ah balse mar kale ayay kulmeen waxay ogaatay in uu wiilkan ka dhashtay famil hanti leh iyada oo nafteeda la hadlaysa ayaa waxay tiri hadda ayaan helay wiilkii aan kuriyoon jiray oo saxda ahaa midkii hore si qalad ayuu ku soo galay nolosheeda cajiib waxay bilowday in ay wiilkan soo dhawaysato oo ay u muujiso rabitaan iyo jacayl iyada oo weliba hadal jilicsan kula hadlaysa ugu dambeyn way soo jiidatay wiilkii asagana wuu ka helay ilaa uu xiriirkan noqday mid aad u sii xoogaysta maalinba maalinta ka dambaysa markii uu xiriirkooda ka soo wareegtay muddo hal bil oo kaliya ah waxay go'aansatay in ay ka tagto ninkeeda una tagto wiilkan ay isbarteen alaabaheeda ayay qaadatay iyadoon la ogin ayayna dhuumatay wayna iskaga tagtay ninkeeda iyo carruurteeda familkeeda ayay iskaga tagtay sabab la'aan ayayna carruurteeda ugu tagtay waxay u tagtay wiilkii ay isbarteen waxayna ku qancisay in ay weli guursanin oo ay single tahay gabadhan wiilkan waxay ka weyn tahay da' ahaan 9 sano wiilkan oo lagu magacaabo Master Joy ayaa waxa uu weydiiyey sababta ay u guursan weysay maadaama ay xoogaada ahaan ka weyneed waxay ku tiri aniga waxaan ahaa maclimad dhanka luqadda Ingiriiska barta oo ku noolay dalka Mareykanka iyada iyo familkeeda laakiin familkeeda in ay weli ku nool yihiin dalka Mareykanka ayay u sheegtay waxay kaloo u sheegtay in ay Kuuriya u timid arrimo shaqo la xiriira waxaas oo dhan ay sheegayso waa beenteeda qoyskeeda waxa ay ku nool yihiin dalka Kuuriya waana naag xaas ah waxay ka cabsatay in uu saaxiibkeeda ku dhaho isoo bar qoyskaaga ilaa qoyskeeda ma soo bari karto waa naag la qabo sidaas ayayna filimkan u samaysatay runtii way iga yaabisay gabadhan ugu dambeyn markii uu xiriirkooda sii dheeraaday wiilkan iyo Kim waxay go'aansadeen in ay isguursadaan waa sida iyadaba ay rajaynaysay markeeda hore laakiin arrintan waxaa diiday familkii uu ka dhashtay wiilka iyaga oo sheegay inaysan gabadhan u qalmin wiilkooda ayna ka weyn tahay 9 sano waxay dhaheen waxaan rabnaa gabar da'daada oo kale oo carruur ku dhali karta waxaana ka cabsanaynaa in ay gabadhan wax ay ku dhali weysay Kim markii ay ogaatay in ay arrinta meel xun gaartay way fikirtay waxay bilowday in ay familka dhex gasho ayna soo jiidato laakiin arrintaas way ku soo jiidan weysay balse fikir kale ayay la timid waxay u sheegtay familka wiilka maalin ay wada fadhiyeen oo ay wada cuntaynayeen in ay uur u leedahay wiilkooda ayna tahay bisha 3aad wiilka familkiisa markii ay arrintaas maqleen way ogolaadeen guurka maadaama ay ubadka wiilkooda ay wada gabadhan Kim inta uu guurka dhicin waxay familka wiilka ka dalbatay hal arin oo ah in guurka la qariyo cidna aysan ogaanin familkii ayaa arrintii la yaabay
waxay isdhaheen maxay u diidaysaa in guurka laga maqlo meelaha. waxay u sheegtay in ay tahay gabar weyn oo waxgarad ah oo aysanna rabin in guurka lagu bixiyo wax qarashaad fara badan intii lacag badan la khasaari lahaa. waxaa roon in arrinteena hoos u dhammaysano, ayay ku tiri. familkii ayaa oggolaaday arrintii iyaga oo ku qancay hadalkeeda. laakiin Kim weli waxaa hortaala hal caqabad oo ah marka la guursanayo, xataa haba ahaadee mid qarsoodi ah guurkan, waxaa lagama maarmaan ah in labada dhinac familada ay ka joogaan. waxayna sheegtay in ay familkeeda ku nool yihiin dalka Mareykanka, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in ay familka imaadaan arooska gabadhooda ayna ka qayb qaataan farxaddeeda. si ay arrintaas u xaliso waxay samaysay wax la yaab badan iyada oo waalidiinteeda ka dhuumanayso. ilan waalidiinteeda way og yihiin in ay tahay qof xaas ah. waxay soo kiraysatay waalidiin kale oo matalaya in ay iyada waalidiinteeda yihiin. ugu dambeyn arooskii ayaa si fiican u dhacay. hase ahaatee familkan Master Joy waxay ku arkeen familkan gabadha mar walbo ay rabaan in ay ka wareystaan arrimaha Mareykanka iyo carruurta kale ee u joogto Mareykanka. waxay iska dhigayaan kuwa aan wax ka maqlin hadalkaas oo way iska jeesanayaan iyaga oo ka fogaanaya su'aalaha familkan. laakiin xafladii waxay ku dhamaatay si wanaagsan. laakiin arrin kale ayaa imaaday. gabadhan waxaa laga rabay in ay saxiixdo warqadda guurka, balse haddii ay warqaddaas saxiixdo waxaa soo baxaya guurkii hore oo waxaa la ogaanayaa in la qabo. waxay ku qancisay wiilkii Joy ahaa in ay hadda muhiim aysan ahayn oo ay mar kale saxiixi doonto. kadib uurkii gabadhan waxaa ka soo wareegatay muddo 6 bil ah oo waxaa la rabaa in uu uurka marba mar ka dambeysa uu sii weynaado. walwalkii ayaa ku sii batay gabadhan. way fikirtay sida ay qorshayaalkeeda horeeyay ay ugu fikirtay oo kale. 6 bil ayaa laga joogaa uurka gabadhan, wax uur ah oo ka muuqdana ma jiraan. waxay isku dayday in ay Joy ka fogaato si uusan u ogaanin qorshaheeda. waxay la xiriirtay ninkii ay soo kiraysatay arooskeeda, gaar ahaan ninkii matalayay adeerkeeda. waxay u dirsatay wiil yar hadda ama dhowaanahan la dhalay, maadaama ay ku qancisay ninkeeda in ay dalka Mareykanka ku soo umusho. haddaba waxaa loo baahan yahay qarashaad badan oo lagu fuliyo qorshahan halista ah. Master Joy ayaa waxay ku qancisay marka gabadha ay ku umulayso dalka Mareykanka in ay ku baxayaan qarashaad fara badan. waxayna ka codsatay in uu siiyo lacag dhan $70,000 ah. lacagtanna waa lacagtii ay ku soo heshiiyeen nimanka ay soo kiraysatay in ay hoosha ugu fulinayaan oo ay u keenayaan cunug yar oo dhalad ah. lacagtii wuu ka oggolaaday wuuna siiyey islamarkiiba. nimankii ayay hooshii ugu dirtay iyada oo u horumarisay $1,000. waxayna ku tiri lacagta kale marka aad cunuga ii keentaan ayaan idin dhammaystiri doonaa. ninkan oo ay shaqada u dirtay oo ahaa nin ku jiray xaalad dhibaato oo dhinaca dhaqaalaha ah oo deen badan lagu lahaa, shaqo la'aanna iska ahaa, ayaa wuxuu ku fikiray haddii uu shaqadan qabto in uu ugu bixi doono dhibaatooyinka haysato oo dhanka dhaqaale xumada ah. si uu hawshan u fuliyo ayaa waxa uu la tashtay 2 nin oo ay saaxiibo yihiin si ay ula qabtaan shaqadan ayna la raadiyaan cunugan yar. wuxuuna u ballan qaaday in uu siinayo lacag fiican. hawshii ayay galeen. hase ahaatee arrintii waxay ku noqotay mid adag, mana filaynin in ay sidaas u wey doonaan cunug yar oo dhalaan ah. si kasta ayay u raadiyeen iyaga oo waqti badan geliyey raadinta cunug dhalaan ah. aad ayayna ugu adkaatay in ay helaan. gabadhii Kim ahayd aad ayay u walwalsan tahay. cunugii waa loo waayey. waqtigii ayaa ku dheeraaday 9 bilood ayaa la dhaafay. nimankii ayay culays badan saartay. waxay ku tiri maxaa idinka khaldan? maad soo raadisaan cunuga, maa la soo dhaqsataan? waqtigii baa aad igu dhaafay. ugu dambayn Kim waxay go'aan ku gaartay in ay u laabato ninkeeda dambe ee Master Joy. markii uu ku yiri aawi cunugeeni yaraa, waxay u sheegtay in ay dhashay uguna soo tagtay dalka Mareykanka. waxayna u sheegtay in lagula taliyey in ay hadda u qaadanin dalka Kuuriya. waxay kaloo ku tiri ilmaha waan dhalay, wuu nabad qabaa, waxaana iga daba keeni doona adeerkayga. muddo kadib wuu ku qancay ninkan oo gabadhan aad u aaminsanaa. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah Kim nimankii u raadinayay cunuga in ay arkeen hooyo haysata cunug yar oo ku sugneed meel xadiiqa ah. nimankii ayaa u tagay naagtii, wayna salaameen. waxayna arkeen cunug aad u yar misana wiil ah. Kim waxa ay raadinaysana waxa uu ahaa wiil. nimankii ayaa isku baaqay iyagoo yiri waa fursad qaali ah, waa inaan ka faa'iidaysanaa. isla markiiba gabadhii iyo cunugii ayay afduubteen. kadibna ninkii matalayay Kim adeerkeeda ayaa qaaday cunugii yaraa, wuxuuna 2 nin ku yiri iga reeba naagtan. 2 nin markii uu ugu tagay in ay naagta celiyaan oo kaliya way dileen, wayna dhimatay. ninkii kalena waxa uu cunugii yaraa u geeyey Kim. Kim ayaa aad ugu faraxday cunugii yaraa, lacagtiina way siisay. aad ayayna ugu faraxsanaayeen Kim iyo familkii Joy. laakiin farxaddaas waxaa ka dambaysa murugo fara badan. waxaa dhacday 3 bilood kadib, 3 nin oo baawur saaran oo waddada marayay waxay arkeen baawur booliis oo si xawli ah agtooda ugu soo socda.
baabuurkan oo daba bursanayay baabuur kale oo saarnaa niman tuuga ah, laakiin nimankan oo isku ogaa dembi ilin dembi dil ee ma qarsamee iyaga ayaa isku maleeyey in uu booliiska daba joogo. Markaas ayay baabuurkii xawli ku sii wadeen, isla markiiba booliiska shaki ayaa galay, wuxuuna isdhahay maxay u cararayaan nimankan, wax in ay jiraan ayuu ku fikiray booliiska. Ugu dambeyn waa la istaajiyey baabuurkooda, isla markii ayaa booliiska nimankan waxay ka codsadeen in ay baabuurka ka soo degaan si baaritaan loogu sameeyo. Baabuurkii ayay baareen booliiska, wax way ka waayeen, laakiin waxay heleen telefoonkan waxaa iska lahaa gabadhii ay dileen. Markii ay telefoonkii shideen booliiska iyaga oo baaraya qofkii ugu dambeeyey ee telefoonkan soo wacay, waxay arkeen qofkii ugu dambeeyey ee soo wacay telefoonkan inuu ahaa qof marar badan soo wacay. Booliiskii ayaa wacay lambarkii, waxay ku dhaheen yaa tahay, maxaase rabtaa? Shakhsiga telefoonka soo wacay oo ahayd gabar ayaa u sheegtay booliiska in ay telefoonkaas iska lahayd gabar saaxiibteeda ah oo 3 bil ka hor dhimatay. Isla markiiba shakigii booliiska ayaa sii kordhay. Nimankii ayay ku dhaheen intee ka keenteen telefoonkan. Nimankii oo cabsi badan ka muuqatay ayaa qirtay in ay dembi galeen oo ay cunugii yaraana u geeyeen naag kale. Booliiskii ayaa isla markiiba u imaadeen Kim iyaga oo ka cabsanayay in ay dhibaato u geysanayso cunugaas yar. Hase ahaatee waxayba u yimaadeen famil aad u faraxsan. Booliiskii ayaa Kim ku yiri waxaad haysataa cunug aadan dhalin. Ninkii Joy ahaa ayaa aad u yaabay, ilaan wuxuu u haystaa in uu cunuga asaga dhalay. Kim iyo 3 nin ayaa maxkamadda la saaray. Kim oo markeeda hore ku doodaysay in ay cunugan iyada dhashay, ugu dambeyn waxay qiratay in ay shaqadaas ninkan u dirtay, laakiin aysan waxba ka ogeyn in ay wax dileen oo kaliya iyada ay rabtay cunugaas yaraa. Sidoo kale ninkii kale ay shaqada u dirtay asagana wuxuu iska bari yeelay hooshii dilka ahayd. Wuxuu yiri aniga waxaan ku dhahay labadan nin iga reeba naagtan oo kaliya ee dila kuma dhihin, waxna kama ogeyn dilka ay u geysteen. Aniga cunugii yaraa ayaan Kim u qaaday, wax war ahna kama haynin in ay dileen. Ugu dambeyn maxkamadda ayaa waxa ay ku qanacday Kim iyo ninka ay adeegsatay hadalkooda, waxaana lagu xukumay min 5 sano, halka labada kale ee dilay naagta lagu xukumay xabsi daa'in. Haddaba daawade, adiga horey ma u aragtay naag nin qabo oo nin kala guursatay? Fikirkaaga hoos noogu reeb. Mahadsanid.